oo isbuuciiba 2 jeer aad ka dhageysan doontaan kala daawan doontaan telefishinka Shabeelle sidoo kale waxaad ka dhageysan doontaan idaacadda Shabeelle Mujaddida 101.5 MHz ku soo dhawaada mar kale barnaamijka xuquuqda dhulkaas yeesho waxaan idin ka raali galinaynaa barnaamijkan oo la rabay inuu soo galo 3 galabnimo amaba 9 galabnimo hadba qof sidoo u yaqaanay sayashii waqtigaasi cilado farsamo oo naqabsada awgeed barnaamijkeena maanta wixii ka dambeeyay waxa aad naga baran doontaan inuu hawada soo galo saacadu markay tahay 10:20 daqiiqo ku soo dhawaada markale barnaamijkeena maanta barnaamijka mawduuca aan kaga hadli doono waxa uu yahay sida loo hagaajiyo diiwaan gelinta dhulka duuga ah iyo midka cusub ee maamulka gobolka Banaadir imika uu diiwaan geli ama gacanta uu ku hayo barnaamijkan waxa ay qayb gali doonta martida barnaamijka Abukaate Cali Xalane iyo sidoo kale Abukaate Cali Jibriil oo labaduba ka tirsan xafiiska Jibriil Law Office iyo sidoo kale xafiiska Xalane Law Office labaduba gordhow ayaan soo dhaweey doonaa barnaamijkan waa ay qayb gali doonaan daawadayaal markale soo dhawaada barnaamijka waxa ay qayb galaya Abukaate Cali Xalane iyo sidoo kale Abukaate Cali Jibriil aan ku hormaray Abukaate Cali Xalane soo dhaw ku soo dhaw barnaamijka Abukaate Cali Jibriil soo dhawaadina waa maasantiin dhamaantiin mawduuca ugu horeeya waxaan weydiin doonaa Abukaate Cali Xalane sidee lagu horumarin karaa diiwaan gelinta cusub marka hore inta aynaan u gudbin sidee lagu horumarin karaa diiwaan gelinta dhulka isqabsigiisa batay dowladda hoose waxaan marka hore fiirinaynaa horta waxa loo isticmaalo ahaan waxa loo isticmaalaa sharci number 10 oo soo baxay 17 December 1980 marka hadda kan nool oo markii magaranaysaa la isku qabsado lagu kala baxo ama la cuskado asaga tiir u ah marka fiirisid qodobadiisa wuxuu ka hadlaa qodob la yiraahdo 23 ayaa wuxuu ka hadlaa diiwaan gelinta dhulka marka muku badna sidii la rabay inuu u qeexa ama uu diiwaan gelinta uu siiyo waqti wuxuu sameeyay 2 nuqdadood oo kaga hadlay Ibrahim nuqdada hore waxa waaye in dawladda hoose ee Muqdisho ay u sameeyso qaab kasta ama dhul kasta bixintiisa in diiwaan gelin gaar ah ay siiso sida markii magaranaysa qof uu weydiisto dhul deegaan ah waxay leeyihiin qeyb u qaabilsan sida loo diiwaan geliyo deegaankaas qaybta suuqyada oo kale markii qof uu wax ka dalbado oo cadyaro suuqa uu ku ganacsado waxa loo maraa hab ama qaab loo maraa oo diiwaan gelintiisa lagu sameeyo dhinaca kale ayadana markii qof uu rabo inuu uu sameeyo warshad ama dhul uu rabo inuu ganacsi weyn uu ku hormariyo
ayadana waxaa waay qayb kale ama qaab kale u diiwaan gelisaa waa faqradda hore taas markii loo soo gudbo faqradda dambe waxay tilmaamaysaa dukumentiyada iyo waxyaabaha la rabo in diiwaangelinta lagu sameeyo ayadoo weliba faqraddaas labaad ay ku xuseyso in xukunada maxkamadaha ka soo baxo naftirkooda ay noqonayaan dukumentiyadii dowladda hoose ay bixisay qayb ka mid ah sababta maxaa waaye marka dowladda hoose maxay bixisaa dowladda hoose waxay bixisaa markii aan u fiirino inta aan soo sheegnay qof kasta dalabkiisa ama codsigiisa ayay ka jawaabaysaa marka codsigaas jawaabista ay ka bixinayso ayay waxay siinaysaa waqti uu ku bixiyo lacagtii dhulkii la geeyo qofkii loo sameeyo marka warqadda ugu horeyso oo rasiidka ah oo canshuur lacag qabashada ayaa dusheeda loogu qorayaa numberka dhulka la siiyey hadduu ilaahay ku roon yahay baaxadiisa iyo jihooyinka uu kala leeyahay meeshaasaa lagu qorayaa taasoo marka qofka dukumentiga ugu horeeya ee dhalashada dhulka uu ugu dhasho oo diiwaangelinta loogu sameeyey kaasaa loogu sameynaya waa mahadsantahay abukaate cali jibriil usoo jeesto abukaate sidee cali xalane sidee lagu horumarin karaa ama lagu hagaajin karaa diiwaangelinta dhulka iyada oo la raacayo laba diiwaangelina jirta midka cusub iyo midkii hore marka qaabkee lagu hagaajin karaa abukaate waxaan siinayaa cali jibriil diiwaangelintii hore iyo diiwaangelinta hadda jirta wax farqiga u dhexeeya horta ma jiraan sidii waagi hore loo bixin jiray hadda loo bixiyaa mushkilad jirtaa waxaa dhacday waxay tahay diiwaangelintii hore oo la diiwaangeliyay dowladda hoose diiwaangelisay waxaa dhumay dokumentigii dad shaksiyaad gaar u gacanta u galay isla nidaamkii ayaa hadda lagu diiwaangeliyaa farqi weyn ma jiro marka xoogaa waxaa jira cariiri dhul oo hadda dowladda hoose aysan hayn muwaadin kasta maanta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo meel uu ku noolaado dhul keyd ahna oo hadda gobolka banaadir u yaalo ma jiro mideeda kale xitaa dowlad goboleedyada dhinacyada kale soo cariiriyey marka waa culays xoogan oo saaran dowladda hoose sidii lagu heli lahay muwaadin kasta oo wadanka degan oo gobolka degan siduu ku heli lahay meel uu dego waa mahadsantahay abukaate cali jibriil cali xalana usoo jeesanayaa abukaate ma jiraa dhul si qaldan loo diiwaangeliyey oo imika la la-yahay oo dowladihii hore amaba si un qaabdaran loo diiwaangeliyay laakiin imika la la-yahay diiwaangelintiis meel la raac la la-yahay taas waxaa waaye waxaan ku raacsanahay qareenka saaxiibka jibriil marka uu ka hadlayo uu dhahayay ma laha hadda baaxad ama dhul la fidin kara ma laha marka uu dhahayo qaabka la rabay in loo diiwaangeliye ee uu asaga ka hadlay ayay su-aashan daba imaanaysaa sababta waxaa waaye diiwaangelinta marka la rabo in la sameeyo qaabkii hore sidii lagu diiwaangelinayey iyo qaabka oo adduunka hadda hore u maray lagu diiwaangeliyey isma laha qaabkii hore waxaa lagu diiwaangelinayey documenti qofka uu gacanta ku hayo ka soo baxday dowladda hoose iyo dowladda hoose oo registration ama diiwaangelin ku sameynaysay bugaagteeda marka buuqii qof bini aadana gacanta ku hayo maanta haddii la qoro birito waxaa laga yaabaa in baalkii la gediyo baalkaas mar haddii la gediyey way adkaanaysaa qalad hadduu ku dhaco in dib loo soco laakiin haddii la isticmaali lahaa maadadan xog ururinta oo luqadda kale ajnabiga oo lagu dhihi karo database haddii lagu sameyn lahay waxaa la sameyn lahay qof kasta inuu furo ayuu wuxuu arki lahay sanooyin wixii la sameeyey meeshaas ayada ah marka qaabka ugu sahlan oo lagu sixi karay noqon lahayd tan kale tii hore iyo tan isla nuuciyay ku socdaan markaan usoo noqdo marka su-aashaadii ahayd ma dhici kartaa in la siiyo dad dhul ama xaqma u leeyihiin dad dhul la siiyey inuu ka lumay ama oo ka baaba'ay maanta ama diiwaangelinta ay khaldantay xaqma u leeyihiin maanta inay heli karaan xuquuqdoodii run ahaantii waxaa waaye qaabkii horey loo isticmaalay oo qaldanaa dartiis wuxuu keenaa in iftiinkii la rabay in lagu arko dhulkaas asaga ah ee lagu soo saaray inuu lumo dad badan baa jiro oo dhulkoodii uu maqan yahay oo ama waalidkii ama qof
ehel ahay loo dhiibay dukumentigii isagana uu ka lumay marka haddii qofka garanayay dhulkiisa meesha uu ku yaalay oo dukumenti ahaan u yaqaanay haddii qofkaasi oo lumo dukumentigiina la waayo ama qofkii oo dhinto dukumentigiina gacan aan lagu haynin waxaa adkaanaysa dadkii lahaay hantidaas ayada ah inay baadigoob ku sameeyaan ay soo dul istaagaan way ku adkaanaysaa marka cilada taagan waxaa waaye warqadihii la rabay in wax lagu raadiyo markii haatan loo tago dhulka dawladda hoose oo kale ee hadda banaanka lagu haayo dukumentigiisa waxaa lagu weydiinaa mararka qaarkiis sanadkii inaadan sanadkii hayn inaad dhici karto mararka qaarkiis waxaa lagu weydiinaa dadka dariska ah ee dhinacyada adiga dadka dariska ah iyo dhinacyada waa dadkan waa lagu kala tagay meeshaan waxaa dhici karto jiilba jiil inuu bedelay qofkii inuu gurigiisii gartaa laga yaabaa oo dad cusub ay soo degeen marka xujay ku noqonaysaa marka way adag tahay in dad badan dhulkoodii maanta xamar uu yaallo dadka deganina ay sugayaan in loogu yimaado oo la dhaho nasiya haddana dadkii lahaay hantidaas oo ay ku soo wareegtay oo dhaxaltooyadii ahayd ay ku adkaanayso inay helaan meel ay u maraan marka aad bay ay u badan tahay ciladaas cilad maalin kastaba joogto ah waaye oo aan ku aragno garsoorka watahay abukaate cali xalan aad baad mahadsan tahay waan kugu soo laaban doonaa barnaamijka guda jirno waa barnaamijka xuquuqda dhulka oo ka baxa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxaad si toos uga daawataan TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho barnaamijkan wuxuu ku saleysan yahay ballaarinta helitaanka cadaalad waxaa hirgelisay PACT iyo xeerka American Bar Association Rule of Law Initiative barnaamijkan toddobaadkiiba 2 jeer ayaad ka daawan doontaan kana dhageysan doontaan TV-ga iyo idaacadda Shabeelle qeybaha qadadka telefoonka ayaa daawadayaal dhegeystayaal idin furi doonaa idinka oo naga soo wici doona telefoonka nambarkiisu uu yahay ibir laxal 7 64 84 44 aan ku celiyo mar kale daawadayaashu iyo dhegeystayaashu barnaamijkan way ka qayb gali karaan ayagoo ka hadlaya habka diiwaangelinta ama wax loo diiwaangeliyo amaba dhageystayaasha qaarkood ama dadkana daawanaya qaarkood inay ku dhacday in dhulalkooda si qaldan loo diiwaangeliyay xaggay u mareen barnaamijkan ayaad kaga boogan doontaan oo abukaatayaasha imika nala fadhiya cali xalane iyo cali jibriil ayaa inaga qabtiri doona aan ku celiyo mar kale daawade waxaad naga soo wici doontaan telefoonka nambarkiisu uu yahay ibir lixal 7 64 84 44 ayaa si toos ah barnaamijkaada uga qayb gali kartaan barnaamijkan waxaa maalgelisay ama hirgelisay shirkadda Action for Development and Research ee loo soo gaabiyo ADR gordho barnaamijkan ayaan ku laaban doonaa daawadayaal hase yeeshee aan ku laabto abukaate cali xalan aan ku laabtay hay abukaate waxaa waaye su-aasha kale midda kale aan rabo inaan si fiican u gaarsiiyo dadweynaha na dhegaysanaya mar haddii dhulkii qofkii uu shalay uu haystay dhulkiisii uu deganaayo maantana uusan u haysanin dukumenti waxa keliya oo la sameeyo oo lagu baadigoobaa waxaa waaye in qofkaasi uu u samaysto sugitaan milkiyadeed marka haddii ay jiri lahayd meel oo u mara ama magaca inuu sheego oo kaydkii kaydin lahay dhulkaas asaga ah magacii lagu garaaco isla markiiba uu u soo saari lahay waxaa u sahlanaan lahayd dhulkiisii meesha u mari lahay iyo meesha u aadi lahay cilada taagan marka maxaa waaye dhulkan buwaagta lagu qoraayo oo buwaagtooda ay imaan karto in ay qaldamaan inay dhumaan inay duugoobaan in qof uu qaadan karo inay wax kasta ay ku dhici karaan waxaa kaga habboon in diiwaangelin lagu sameeyo diiwaangelintaas marka ayada ah ee lagu shubayo aaladaha hadda la isticmaalo computeriska iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah markii lagu shubo waxay imaanaysaa marka qofka inuu tilmaam macnaha magacuu sheeganaya magaca markuu sheegto jaamacuu leeyahay intaasoo kumanaan kun oo jaamacaa soo baxayso jaamaca maxaa loogu daraa intaas researchiga isla markii la heli karaa hadda markii la aado diiwaangelinta weyn ee Umar Tugumbo kale hadda muxuu sameeyaa Umar wuxuu siinaa Umar Tugumbo amal muxuu ahaan jiray si dadka u ogaadaan
cumar wuxuu ahaa qof ka tirsan dhulbixinta xilliga ha xirfad iyo aqoonna u leh laakiin qaabka hadda uu ku shaqeeyo waxa waaye qaab ah in asagii laga soo qaato xuquuqdii ama wixii loo isticmaali lahaa in qofka xaqiisa lagu raadiyo aad iyo aad abukaata cali xalna kugu soo laaban doonaa markaan qaybihii qaadka telefoonka ayaanu eegi doonaa dhegeystayaasha ku jira na daawanaya mid iyo laba ayaanu siin doonaa haddii uu jiro dhegeyste ama daawade qadka ku jiro waan siin doonaa hase yeeshee waxay naga soo wici karaan telefoonka nambarkiisu uu yahay eber 6 dhegeystaha qadka ku jira ayaanu siinaynaa halow dhegeyste daawade soo dhawow halo halo السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام واكم مقلنا ولا soo dhawow hadaad barnaamijka la socoto barnaamijka maanta mawduuciisu wuxuu ku saleysan yahay sida loo hagaajiyo diiwaangelinta dhulka marka caqabad dhulka in ka qabsatay ma jirtaa diiwaangelinteeda وهاجاج waxaan filayaa dhageystayaasha inuu soo mawduuca la socon dhageystayaasha aan la socon mawduuca waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijka soo wicin si ay uga mashquulin kuwa doonaya inay barnaamijka ka qayb galaan dadka dananaya inay ka qayb galaan barnaamijka waxay naga soo wici karaan telefoonka nambarkiisu yahay ibn 7 64 ayay naga soo wici karaan aragtidooda iyo cabashadoodana halkaasi ayay kaga gudbin karaan nambarka shaashada ayuu kaga qoran yahay dadka sidoo kale tooska nooga daawanaya facebooka iyaguna waxa ay aragtidooda noogu reebi karaan qaybta hoose ee commentiga ama cabashadooda hadba siday tahay abukaate cali xalana ayaan kusoo laabanaya abukaate boosaska la isku haysto mararka qaar dadku isku qabsadaan ma la dhihi karaa diiwaangelinteeda ayaa qaldan waxaa suurtagal ah qoys dhul la siiyey ama dhul iibsaday in la dhaho gurigan oo kale adinka ma lihidin oo si kale wax u dhacaan marka diiwaangelinta qaldan ma la dhihi karaa horta diiwaangelinta sideedaba waxaa waaye wejiyo kala gedisanay ay ku qaldantaa markii la fiiriyo diiwaangelinadii hore waxay ku qaldami jireen qaab garanaysaa bixinta dhulka for example qofaa waxaa la siinayaa 10 boos 10kii boos oo la siiyey ayuu wuxuu samaynayaa wuxuu iibinayaa rasiidyadii uu iibinayaa ama wuxuu iibinayaa subrologooyinka iyo rasiidkii marka ma aha asaga geometry dhulkii bixiye ma aha dhulkii waa loo cabiray 10kii boosaa la yidhi waa kana documentigii sidoo doonuu u kala bixina laakiin hadhow markay noqoto deegaan ahaan markii la soo dego si kala gedisanay dadkii u kala deganaanayaan culays ay noqotay waa aragnay maxkamadaha aan ku aragnay ciladahaasi inay jiraan midda kale waxaa waaye qof la siiyey dhulkiisii mar alle iyo markii diiwaangelintii loogu soo sameeyey waxaa ku adkaatay asagane in dhulkiisii isla mar labaad ama mar saddexaad ay noqoto in bixin lagu sameeyo oo systemka markaas jiraa uu keeno in asagina 2 goor 3 goor 4 goor oo kale uu bixiyo marka waxaa imaanayso in loo raaco asalka in loo raaco oo ah in qofkii ugu horeeyay diiwaangelintii ugu horeysay loo sameeyay asagaas loo raadiyo xuquuqdiisii asagana ay tahay cidda mutaysanayso marka marar badan ay nagu dhacdaa isqabsigaas xoogga leh maxkamaduhu ka dhacaa dibaa loogu celiyaa hay-addii soo saartay dawladda hoose ah dawladda hoosena waxay keentaa inay ayadu saxdo qaladkaas isaga ah ayna isku daydo inay dhahdo waxaa xaq u leh sanadku markuu ahaa intaas ciddaasaa la siiyey wixii ka dambeeyeyna ma aha diiwaangelin rasmi ah ee loo raaci karo marka taasi waxay keenaysaa in sidaasi lagu kala saaro badanaana waa wax dhaco oo yaallo maanta garsoorka hortiisa waayahay abukaata aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeena daawadayaal dhegeystayaal maanta waxaa ku saleysan yahay sidii loo diiwaangeliyo dhulalkii hore ee dhulalka imika la diiwaangeliyo maamulka gobolka banaadir gacanta uu ku hayo sida dhegeystayaasheena ama dadka inta badan cabashada kala kulma amaba dhibaatooyin kala kulma ay arrintaasi ula socdaan waxa ay kaga qaybgeli karaan barnaamijkeena telefoonka nambarkiisu uu yahay eberle 764 qadka iyo qofka ku jira ayaanu siinaynaa markan daawada soo dhawow عليكم السلام ورحمة الله codkaaga aad noogu gaabaya haddaa codkaaga kor u qaadi lahayd way ficnaan lahayd يا soo dhawow barnaamijka ma la socotaa hallo
wahagaag waan kusoo laaban doonaa abukaate cali xalana ayaan ku laabanayaa oo su-aalaha ugu badan maanta dhinaciisa aan weydiin doono abukaate ma jira dhul si qaldan loo diiwaangeliyey ayadoo la isticmaalayo teknolojiyadda hadda jirta sida computer iyo wax lamid ah amaba in ay diyaarad sawirto oo kale ma jira dhul qaldan oo maanta la sixi la ayaa qaab hab diiwaangelintaankiisa ay qaldantay waxaa jira dhul ku yaala madiina dhinacaas iyo maxaa dhahdaa xoosh dhinaciisa shishe dhulkaas waagii hore waxaa lagu sameeyey systemkii oo computers ayaa lagu sameeyey hawada saraa laga sawiray dhulkaas dokumentiyadiisi waa yaallaa magaalada si fiicana oo sax ah ayaa loo diiwaangeliyey laakiin wuxuu noqday dhul aan isla markiiba laga faa'iideysanin oo looga faa'iideysanin diiwaangelintii lagu sameeyey problemskii iyo wixii jiray dartood lama dhammaystirin marka dhammaystirkiisa ayaa dhimanaay marka diiwaangelin waxay noqonaysaa oo si qaldan loo diiwaangeliyey aan sax ahayn tan kale waxaa jiro ma garanaysaa dhulal fara badan oo hadda markii laga soo laabtay problemkii soomaaliya ku dhacay dib loogu soo laabtay waddanka dhul horey u jiray oo diiwaan gashnaay ayaa la isku dayay in dib ayadana loo diiwaangeliyo marka diiwaangelin dul saaranaa jirto marka waa ay jiraan qaladaadkaas aaday u badan yihiin wahagaag daawadayaal dhegeystayaal aad buu u mahadsan yahay abukaate cali xalane waan iskugu soo laaban doonaa ayagoo dhegeystayaasha daawadayaasha naga soo wici karaan telefoonka 7 ama aan raahday ibril xal 7 64 84 44 ay inaga soo wici karaan oo barnaamijka ay kaga qayb geli karaan waxaan ka codsanaynaa dadka ka qayb galaya barnaamijka inaysan telefoonka buuxin oo ay jaanis siiyaan dadka daneynaya inay barnaamijka ka qayb galaan qadar muusiga kadib ayaan iskugu soo laaban doonaa hase yeeshee waxaa jira dhegeyste iminka qadka ku jira hadduuna maqlayo daawade dhegeyste soo dhawow barnaamij ku soo dhawow codkaaga aad u noogu gaaban yahay hore ugal barnaamijka mawduuca barnaamijka kaga qayb galaysa waxaa weeye habka loo diiwaangeliyo dhulalka marka cabasho arrintaasi ma qabtaa oo dhul si qaldan loo diiwaangeliyo og tahay su-aashayda waxa waaye qareennada horta waa salaamaya iyo mataqaanaa tv-ga shabeelle shaqaalaheeda kulli waa salaamaya magacayga waxa waaye gariiqaan ismaaciil xalane qareennada waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto su-aal ah waxaa jirto dhul mataqaanaa dawladdii bixisay oo la sharciyeeyey ay ku yaalo zoonahan asluubta iyo agagaarkiisa inta ka dhexeyso ha ahaatee haddana waxaa dhacday burburkii rag ka shaqeynayay ama joomitirada ahaa nidaamkii dawladda hoose inay kaga faa'iideysteen dhulkii inay dib u sameeyaan shaqeyn kale ayadoo la yiri gooflayaashii shalay lahaay ayaa maanta dib u leh marka dokumentiyadii qaar dadkii waa haystaan gacanta ugu jiraa waa sharciyeysan yahay dhulkii dhulaaba dul saaray sida waxaa kamid ahaa zoono loo yaqaanay zona xaraflaawe dhul la dhaxaa jiray oo ka dambeeyey mataqaanaa asluubta markaad dhaafto jidkii mataqaanaa gabeelaha sheekh ibraahim kasoo horjeedkiisii dhinacii kale wada jir kor dalcadda markaa korto marka dhulkaas dadkii goofleydia dib u ceshtay naqshadaa la saaray waa la qaybiyey naqshadihii xilligii arkay oo ibraahim shaaweynaa la dul saaray marka dadkaasiita xuquuqdoodii see ku helayaan dawladda hoose ma samayn kartaa nidaam ay ku soo celin karto dadkii xuquuqdii dhulkii lahaay oo dadkii hadda dib u saartay in mataqaanaa laga soo celo qaab sidee ahaa loo mari karaa qadaadada sharciga dhanka sharciga taasaan rabaa inay mataqaanaa nooga iftiimiyaan waan mahadsan waa mahadsantaha abukaate cali xalane ayaan u deynayaa waxaa waaye saaxiibkay su-aashiisa waxay ahayd dhul dad ay lahaayeen oo barnaamij kale ama system kale yimid oo la dul saaray oo ama gooflihii uu dib u ceshtay ama systemkii carta iyo wixii ka dambeeyey lagu sharciyeeyey saasaan u arkaa waa saas hadday tahay waxaa waaye dhulka cilada horta ka haysato systemka annaga ka qareen ahaan iyo qofka milkiilaha ah naftirkiisaba dhibaatada ka haysato waxaa waaye mar kastaaba dhul baaxad weyn ayaa waxaa ka imaanaa qof 2 ama 3 qofood
marka haddii qof ama labo ama saddex qofood ay ka yimaadaan oo baahidooda ay tahay inay raadiyaan boos, laba boos ilaa 10 boos ay raadiyaan, dhulkaas ay ka raadiyaan, way adkaanaysaa. sababtu waxaa waaye dadka aad tilmaamaysay hadda ee aad lahayd farsamo yaqaanadii yaqaanay ayaa dib u qalday. mas'aladaas mas'alo jirta waaye, culayskeeda ay leedahay. markastana dawladda hoose waxay isku daydaa inay bedesho dadkii geometriyada ahay ama dadkii shaqaynayay in la bedelay isku daydaa. bedelkaasna waxa keenaya waxaa waaye asagaa yaqaano dhulkan soo ku dhashay oo nuliso waaye, asaana qaldi karo. markaa ku siiya jawaab kooban waxaa waaye waxaa mar kastaaba habboon oo fiicnaan lahayd in la naadiyo dhulka la rabo in dib loo soo celiyo oo dadkiisii gacanta loo geliyo loo xalaaleeyo ama lagu wargeliyaba. maanta maxkamadda waxay samaysay nidaam oo aada sahal u ah. meelaha safaaradaha ay ka furan yihiin ama communitiyada ay joogaan, waxaa laga soo samaystaa warqad oo wakiil ah oo qofku ku wakiilanayo qof inuu dhulkiisa dacwadeeda oo ka galo. muhiim ma aha marka asaga inuu kharash ama dhibaato kale oo galo, waa soo safri kariyaa oo warqadiisaasaa soo safreyso. inta markay timaadana process ay mareen qofkii oo ku wakiishaa qareen u qabanayo. marka ani waxaan dhihi lahay ka abukaata xalan ahaan si loo soo afjaro problemskan isku soo noqnoqday, in nidaamka dawliga ah uu naadiyo oo la naadinayo dhulka intaas la eg, dadkiisii ha u yimaadaan ama ha soo dirsadaan wakiilo si loo helo looga nambaro fara badan oo ayaga isku markhaati furaayo in dhulkani uu yahay xilligaas dhul la bixiyey, kana oo kan markhaati furaayo. marka waxaa fiicnaan lahayd in si wada jir ah loo xaliyo problemka, halka laga raadinayo shaksi in lagu helo xal way adkaanaysaa. qofkii wuu ku daalayaa, garsoorkii dhexdiisii xaqi waa leeyahay, waa la arkayaa, laakiin waxaa ka badan intaasoo 100 oo boos oo numberskaas leh qof wato oo cusub oo leeyahay dhulkan abidkiisa lama bixinin, hal boos keliya miyaa la bixiyey. waxaa fiicnaan lahayd in la naadiyo oo markuu la yimaado 100 boos 40 50 60 200 oo boos lala yimaado. marka taasaan aniga dhihi lahay dhegaysta in saas loo raadiyo. aad baad mahadsan tahay abukaate cali xalane oo ka jawaabaya su-aal u qabay ismaaciil xalane oo ka mid ah dad na soo wacay ama dad qadka telefoonka naga soo wacay. dhegeystayaasheenu ama muwaadiniinta Soomaaliyeed waxay naga soo wici karaan telefoonka nambarkiisu uu yahay 07 64 nambarka shaashada ku qoran. dhegeystaha ku jira ayaan siinayna markan daawade ama dhageystay soo dhawow haddaad barnaamijka la socoto hor u gal. halo daawade ama dhageystay. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhawow walaal barnaamijka ma la socotaa? barnaamijka waan la socdaa. marka hore waxaan salaamayaa wariyaasha radio Shabeelle. halo waa ku maqalnaa soo dhawow. magacii waa Ustaad Cabdiraxmaan Amiin. Ustaad Cabdiraxmaan codkaaga waxaa moodaa inuu sii gaabanayo, haddii codkaa kor u qaadi lahayd waa ficnaan lahayd. iyo abukaatiyaasha waan salaamayaa. su-aasheedu waxay tahay marar badan ayaa waxaa soo laalaabto dhulal badan oo la gaday oo qofkii markuu gatay kadib haddana markuu isdhahayo dhulkii dhisto waxaa arkaysaa marar badanna waxaa dhacdo. Ustaad Cabdiraxmaan si aan isku maqalno raadiyaha iska gaabi, raadiyaha iska dami, gebi ahaanba raadiyaha iska dami, codkeena keliya maqal. waan ka xunahay. Cabdiraxmaan su-aal muhiim ayuu qabay inkastoo qadka uu ka go-ay. hase dhegeystayaasheenu iskuma keeni karaan inay muuqaalka daawadaan idaacadna naga dhegeystaan. sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa si aan isku maqalno inay gebi ahaanba iska damiyaan raadiyaha iyo TV-ga oo si toosa codkeena telefoonka ay uga dhex maqlaan. markaan ka codsanaynaa arrintaasi waan ismaqli doonaa markaas insha Allah. Ustaad aan iraahday abukaate cali xalane ayaan ku laaban doonaa. abukaate
haddii ay dhacdo dhul si qaldan loo diiwaangeliyey dad badan cabasho ay qabaan dhulkina aysan hayn maxaa lagu qancin karaa ama maxaa lagu xalin karaa arrintaasi oo dadkan cabasho ay yihiin dhulkoodina qolo kale ay haysato oo la yidhaahdo habkii loo diiwaangeliya qaldan ama mabalhid maxaa cabashooda lagu xaliyaa horta waxaa waaye dhulka sidiisaba bixintiisa waxaa mas-uulka ah dowladda hoose dowladda hoosene cilad kasta ay timaado farsamadeeda ayadaa looga fadhiyaa markii qofka uu raadinayo xaqiisa waxaa loo gudbiyaa dowladda hoose oo dhulka ah dowladda hoose marka waxay raadisaa inay xalkii ka baadi goobto waaxda dhulka waaxda farsamada iyo waaxda diiwaangelinta marka intaas markii laga raadiyo ee qofkii la yiraahdo diiwaangelintii hore ayaa qaldaneed cilada taagan waxaa waaye qofku ma qaldana ee nidaamkiia qaldamay nidaamka marka waxaa looga fadhiyaa inuu siiyo dhul horey u qaldamay hadduu jiro bedelkiisa in muwaadinka loo bedelo oo la siiyo dhulkii shalay la siiyey hadduu ahaa 40 lagu dhuftay 20 intii uu ahaa cabirkiisii loo bedelo oo la siiyo ma qaba aniga inaan dhahayo qof xaq leh oo muwaadin Soomaaliyeed qalada yimid iska tag laakiin dowladda hoose hadduu qaladka ka yimaado diiwaangelintina ayada ay leedahay shuruucdii iyo axkaamtina ayada oo u fasaxay bixintan iyo diiwaangelinteeda diiwaangelin ka timid qaladkeeda dowladda hoose waxaa waajib ku ah dowladda hoose inay magdhowdo qofkaas asaga ah oo ay siiso dhulkii dhul u dhigmo ama ay siiso dhulkii meeshii ay ka siisay qiimaha maanta uu suuqa ka joogo qadar lacaga oo u dhigantay inay siiso in qofkii dhul la siiyo ama la siiyo wax u dhigmo dhulkaas lacag ah in la siiyo aadan u fahmay abukaata cala xalane ku soo laaban doonaa hase yeeshee markaan waa qaybihii farsamada qadar music kadib waan isku soo laaban doonaa dhegeystayaashu ama daawadayaashu aan xasuusiyo waxay naga soo wici karaan telefoonka nambarkiisu uu yahay ibir xal 7 64 84 44.
soo noqod wanaagsan daawadayaal dhageystayaal weli barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa xuquuqda dhulka mawduuciisa maanta aan kaga hadlayna waxa uu yahay sida loo hagaajiyo dhulka ama loo diiwaangeliyo dhulka duuga ah iyo midka cusub oo gobolka Banaadir imika gacanta uu ku hayo barnaamijka waxa igala qayb galaya abukaati Cali Xalane iyo sidoo kale abukaata Cali Jibril ayaa labada barnaamijka igala qayb galaya oo ka kala socda xafiiska Jibril Law Office iyo sidoo kale xafiiska Xalane Law Office oo ku yaala labadaba magaalada Muqdisho barnaamijka ay qayb ka yihiin barnaamijkan waxa hirgelisay shirkadda Action for Development and Research ee loo soo gaabiyo ADR waana barnaamij ku saabsan ballaarinta iyo helitaanka cadaalad waxaana hirgelisay PACT iyo waliba xeerka American Bar Association Rule of Law Initiative ayaa barnaamijka hirgelisay وهجاج قبيه دنبا أيام داود يلا جستي على سلسلة وجارنا أنا قولي أنا قصة وعي كران دنا فنضع أنا هو ده إني كوب الشجني تضرب اللحدني أفر سديتني أفرتني أفر إن أبو كات على حلنا أيام ودينية سؤالها وقطن بيا برنامج كنا داود يلا إن أبو كات مرة ديوان قلنتي دميت لوجه هذا أما لوجه كي هالقضب أو إن قضب كلباتني سدحاد حركة طبعا maxaa qodobka maadaama diiwaangelinta ay tahay mowduuc weyn ama wax weyn oo khilaafaad badan ay ka dhalan karaan maxaa qodobo badan oo tiro badan looga sameyn waayo oo gobolka Banaadir ugu cuskan waayo Ibrahim sax waaye sharci number 10 wuxuu soo qaaday hal qodob uu soo qaaday diiwaangelinta laakiin waxay ahayd diiwaangelinta in la adkeeyo qodobo badan loo sameeyo sababtu waxa waaye xaqii qofka uu lahay meesha lagu shubaayay waaye ama kaydkii la rabay in lagu haayo marka run ahaantii waxaad arkaysaa in lagu fududaaday anaga xataa waa qabnaa in aanan la siinin mugi ama qiimihii uu lahay waxaa dhumaayo qofkii dhulkiisii waxaa dhumaayo niyadii ama rajadii uu ka qabay milkiyadda ama lahaanshihii waxaa dhumaayo haddii ay ahayd meeshaas ayada ah meel uu rabay inuu wax ka sameeyo oo mujtamaca faa'iido u leh ama isaga ruuxiisaba uu ka faa'iideysanayay marka waxaa ka fiicneed in la jijibiyo qodobkaas asaga ah ee la weyneeyo qodobo fara badan laga dhiga diiwaangelinta laakiin ma dhicin sidii la rabay inay u dhacdo markaad fiirisid eray ahaan waa in yaroo kooban oo aan lahayn maxaa dhahdaa tiro badan laakiin macnawiga ku jiro waxa waaye waa ka weyn yahay iyo waxa la rabo inuu ilaaliyo waa dhaqaale adduun lacag intaas la eg marka way haboonaan lahayd in la sameeyo oo la badiyo marka farsamadii ama xeer beegtii waagaas sharcigan sameynaysa u aragtay laakiin waxaan dhihi lahay in ay ka fiican tahay in laga sii badiyo abukaat waa maasan tahay su-aasha hadday aan ku weydiiyey qaybteeda labaad ayaan rabaa inaan sii raacsado ee ku aadaneed magdhowga qof in magdhow la siiyo maxaa qodobkaasi ugu nuxnuxsatay maxaa magdhow u dul saartay okay gadaalaan u noqotay miya qodobkaas asaga ah waxaan culeysku u saaray magdhowga for example Ibrahim nin odayahoo magaalada jooga wuxuu kasbaday oo aruuriyo xogaa yaroo lacaga intii wuxuu siistay codsi damaandadii dawladda hoose codsigii waa dhul lagu siiyey dhulkaas asaga ah wuxuu u haystay in caruurtiisa iyo asagiiba uu ku asturnaado marka meesha kaliyaho isdhihi lahay haddaad ka tagtid reerkan waa meesha ayatinka u leh oo ay reerku ay ku hiran doonaan ama ay degi doonaan dhulkii asaga ahay in dib layskugu soo laabto oo dhinacii maamulkii ama systemkii uu ka yimaado ka yimid diiwaangelinta waxaan taas leeyahay qofka waajibaadka saaran ee uu sharciga saaraya waxay tahay dhulka markii la siiyo inuu dhisi kariyo dhulkaas asaga ah ee uu nooleyn kariyo ee uu ku dhaqmaayo marka culayskii asaga saarnaay haddii uu buuxiyey laga rabay qof ahaan systemkiina ay noqotay waajibaadkii laga rabay asaga xafidaadii la rabay dukumentigii ama diiwaankii
la rabay inuu xafido ee uu qalday qaladkaasna ku yimid in dhulkii abtirsiimadiisii cid kale ay yeelato isagiina la dhaho markaan diiwaankii rogrogna waa kaa waaynay oo weliba uu yahay canshuur bixiya way dhacday waa aragnay marka qofka systemka wuxuu awood saaray markii dhul la siiyo hadduu nooleyn waayo in dhulkii asaga ahay lagala wareego ee baahida jirta darteed cid kale looga turjumo ayuu nidaamka dawliga ah siinaa marka culayska marka haddii systemka uu ka yimaado qofkan wixii uu ku tabcayay iyo hantidii uu raadinayay iyo mustaqbalkii iyo noloshiisii in magdhow la saaro systemka waa ku waajib qiimaha markaasi suuqa uu ka joogo dhulka asaga ah in la siiyo qarash ahaan ama dhulkan ma jira marka loona dhiso ma jira marka waqti loo qabto oo la yiraahdo dhulkaasi waa inaad ku noolaysaa muddo intaas la eg haddii aad ku noolaan weysana diiwaangelinta iyo magaca dhulka waa lagala wareega waqti intaas la eg ma jirta oo sharciga u qoraay waa jiray waxaa waaye marka qofka uu codsado dhulka ee la siiyo rasiidka kadib wuxuu codsanaa warqadii dhismaha marka warqadda dhismaha waagii hore markii ugu horeysay waxay kusoo baxday muddo 6 bilood ah in qofka uu ku dhisaayo dhulka haddii uu ku dhisaynina xuquuqdii ay lahayd oo ka baaba'ayo kadibna waxaa loo ogolaaday muddo sanad ah inuu dhiso kadibna haddii uu dhisi waayo ay noqoto baahidii dhulka guddi baa jiray oo farsamo ah oo loo soo diri jiray dhulka ogaan jiray in dhulka hareerihiisa oo dhan la dhistay laga reebo dhulka master A ama master B uu leeyahay marka taasi waxay keenaysaa marka dawladda qof baahi deegaan leh inay siiso sababtoo waxa way qofkan baahi deegaan ma haysato tan kale xilliga aan ka hadlayo dhulka waxaa la ogolaay in laga dhiso hal qol oo cariish ah iyo musqul haddana weli waxba iskama bedelin dhismihii asaga ahay marka waa garan kartaa qof loo ogolaaday inuu qol iyo musqul oo ka dhiso ma waaweyn kariyaa lama dhihi karo marka qolka iyo musqushaasi waa intii loogu talagalay reerka inay ku noolaadaan marka way jirtay waqti loo qabtay waqtigii asaga ahay hadduu nooleyn waayana in lagala wareegay cilada marka taagan maxaa waaye dadkii ayaga ahay ee sidaas dhulka looga qaaday ayaa mararka qaarkiis waxaad ka dhex arkaysaa inay ka soo dhex baxaan garsoorka dhexdiisa oo uu ku dacwoonayo inuu wato dukumiinti ka facweyn dukumiintigan laakiin qofkan asaga ah ee dhulkaa degani oo ay u dhisan tahay xilligii dawladda markii la fiiriyay ay jirtay 20 sano ama 15 sano xilligaas 15 sano inay u dhisneed burburkii ka hor haddana hadda ay dagaalkiisii soo bilowday oo la leeyahay dhulka anaga ka facweynayno waxaan u haysanaa dukumenti aan u haysanaa marka ciladaas ayada ah waa la fahmi karaa dadkii hore u jiray waa fahmi karaan inuu dhulkaan ku baaba'ay inuusan qofkaani gacanta uusan ku dhigin ee uu ka guuray ama uu ka tanaasulay dawladdii siisayna ay ka ceshan karto dibna qof kale loo siin karo su-aashan ku dira waxay ahayd hadda u socotaa dhulka markii qofka lagala wareego dhisan waa ma nooleyn waayo dawladdu waxay xaq u leedahay qofka doonta ay siiso saas aan fahmay yes waxa waaye dhulka laba ah midna damanyaalo waaye midna waxa waaye municipalaha marka uu ku soo baxayo qofka deegaan ahaana loo siinaa loo diiwaan gelinaa haddii uu asaga rabo wuxuu ku samaysan kariyaa damanyaal uu ka dhigan kariyaa waa sarrifi kariyaa lacag ahaan uu bedeli kariyaa permitter laakiin damanyaalaha markuu u yahay waxa waaye qof milkiyadda iska lahu noqona haddii dawladda ay u baahatane waxa waaye dawladda waxay siinaysaa dhaqaalihiisii u celinaysaa waxay ka qaadanaysaa dhulkii asaga ahay ustaad abukaata cali xalan waad maasanta su-aasha ugu dambaysa barnaamijkan ku weydiinayo waxay tahay dhulku waa nolosha dadka bulsho kasta waxay leedahay waxay xaq u leedahay inay dhul hesho iyo deegaan hesho Soomaaliya markii la fiiriyo guud ahaan dhulka Soomaaliya qaarkood waxaa moodaa inaan loo diiwaan gelin ama loogu talagelinba jiil mustaqbal inaan loogu talagelin tusaale ahaan waxaa arkaysaa dhulka ma lahan meelo banooniga lagu ciyaaro ma lahan dadka ay ku ciyaaraan amaba wara laga sameeyo kale meel kayma ah kale ma lahan guryihii waa isku dhow yihiin marka maxaa haddaad xasuusato maxaa dhulka markii la bixinayo ama la diiwaan gelinayay maxaa loogu dari waayey meela dadka ay ku nafisaan maxaa loogu dari waayey run ahaantii waxaa waaye planningkii la rabay in qaabka dhulka lagu bixiyo ayaa wuxuu ahaa qaab aan ka soo helnay ama aan ka dhaxalnay mustacmiradii
markaad fiirisid meelaha xadaariga ah oo hadda taariikhda xamar weyne iyo shangaani ku arki maysid barnaamijyada hadda adiga aad sheegaysid because dadka ayaga ah xilligaas looguma talagalin inay intaas fursada ay helaan sistamyadii socdayna waxay daba kaceen nuucii way kale daba kaceen hadda xaafadan anaga hadda dariskeena oo inta nooga dhow fadhigeenan waa beri oo kale Ancelotti in la dhihi jiray xilligaasi governor ahaa lagu magac daray waqtigiisii inteedii ay ahayd marka looma fiirinaynin dadkaani inay ma garanaysaa ay ilaa heer ay raadiyaan meelo ay caruurtii ay ku cayaaraan jardiinooyin ma gaarsiisneen tan kale waxa waaye baahida dhulka markaas la bixinayo dhul aad u yar yaraa la bixinayo hadda 11 iyo bar lagu dhuftay 11 waa beri laga siiyaa xilligaas laga siinayay howlwadaagtan dariskeena ah 13 iyo bar lagu dhuftay 13 midaan maanta aan hortaaganahay oo hodan 13 dhibic lagu dhuftay 3 in yaroo laga reebo dad markaas aqoon lahay ama systemka dawliga ku jiray oo dhulkii damanyaal ahaan u qaadanayay oo ayaga iibsanaya per mitir ahaan u iibsanaya markii laga reebo ma helaynin laakiin markaad fiiriso dhismaha iyo qaabka anaga deegaanka naqshada aan isticmaalnay waa dhul baaxadeed aan isticmaalnay controlka afgooy ilaa controlka laga baxo balcad waxaad arkaysaa guri to guri waa culayska leedahay magaalada waay markaad fiirisid howlwadaag meesha ay hadda ku fadhido kale howlwadaag waxay ku fadhisaa sayidka ilaa dabka ilaa wadadaas oo militariga kor markii loo qaado haddii la dhaho hala istaajiyo oo istaageeda ha lagu sameeyo waxaad arkaysaa in dhulkii oo dhan oo banaanaan doono marka anaga deegaan ahaan aan saan u degnay aqoonti darteed laakiin mustaqbalka waxaa imaan doona in adduunka sida uu u dego kale in kor loo degi doono oo korna laga sameeyo qofku wuxuu xaq u leeyahay ayadoo jaanis ay heli doonaan new generationka dambe la rabo inay dhul helaan oo aniga weliba aad aan uga xumahay laakiin abukaata magaalada saas uma sameysna saas ma noqon karto meel banooni lagu ciyaar ma noqon karto marnaba in laga guuro oo magaalo cusub la dhiso waa noqon doontaa aad baad umahadsan tahay guud ahaan daawadayaal dhegeystayaal intaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena xuquuqda dhulka waxaa hirgelisay shirkadda Action for Development and Research ADR wuxuu ku saabsanaa ballaarinta helitaanka cadaaladda waxaana hirgeliyay sidoo kale pact iyo waliba xeerka American Bar Association Rule of Law Initiative barnaamijkan maanta waxaan kaga hadalnay mawduuciisa ugu horeeyay waxa uu ku saleysnaa sida loo diiwaangeliyo ama loo hagaajiyo diiwaangelinta dhulka duuga ah iyo midka maamulka gobolka Banaadir maanta uu diiwaangeliyo toddobaadkiiba 2 jeer ayaa mawduucan ama mawduuc la xiriira barnaamijyadan aad ku dhageysan doontaan kana daawan doontaan TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho maalmahaas oo kala ah Isniin iyo Khamiis barnaamijka maanta waxaa la qayb galay abukaati cali xalane iyo sidoo kale abukaati cali jibriil labadooduba aad bay u mahadsan yihiin guud ahaan barnaamijkeena intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa